aniga marka maanta meeshan waxaan ka ahay Mikel Arteta kursigiisa aan fadhiya Arteta qolka dressing roomka ma laga sheekeynayo mid kamid ah kooxaha adduunka ugu caansan waa tunnelkii ama meesha ciyaartoyda garoonka uga baxdo waa idin geyn doona aan isla soconno haddana koobkan lagama yaabo inaad ka helishid garoon kale adduunka waa koob dahab kooxda kubadda cagta Arsenal waxaa la aasaasay bishii Oktoobar 1886 waa mid kamid ah kooxaha ugu caansan kubadda cagta dunida 13 mar ayay ku guuleysatay horyaalka waddankani Ingiriiska waa kooxda ugu badan ee ku guuleysatay koobka FA Cup-ka ee ah koobka ugu faca weyn ee dunida oo 14 mar ayay ku guuleysatay wagaag maanta waxaan ku suganahay garoonka Arsenal ee Emirates Stadium oo halkan iga dambeeya ku yaala taariikhda kooxdan ayaan gali doonaa madaxafka ayaan booqan doonaa waxaan kaloo booqan doonaa qolka dressing roomka iyo waliba garoonka guud ahaantiis isla soconno marka laga soo tago taariikhdaasi haddana waa kooxda kaliya ee ilaa iyo hadda ku guuleysatay horyaalka waddanka Ingiriiska gaar ahaan Premier League iyadoo aan laga badin 38 kulan ee la ciyaaro horyaalka waxay kaloo ku guuleysatay 16 mar koobka Community Shield-ka waxay hal mar qaaday koobka European Cup Winners' Cup iyo koobka kale ee Intercities Fairies Cup kooxda fadhigeedu waa garoonka Emirates Stadium oo albaabada loo furay bishii Oktoobar 2006 kahor Arsenal waxay ku ciyaari jirtay garoonkii la burburiyay ee Highbury ee ku yaala duleedka garoonkan Emirates Stadium halkan waxaa idin kaga muuqda laba madfac oo ah astaanta kooxdan ay leedahay bacdama magaceeda ama lagu naanayso The Gunners ama qorileyda We are the Arsenal. maanta waxaan ku suganahay garoonka Emirates Stadium garoonku waa halkan maanta ciyaar kama jiraan maanta laakiin waa la diyaarinayaa garoonka waxaa loo diyaarinayaa waxa weeyaan ciyaaraha soo socda laakiin imika goobta aan ku suganahay waa qaybta ay fariistaan dadka mas'uuliyiinta kooxaha kale iyo kooxda Arsenal mas'uuliyiinteeda directorka iyo halkaan ay fariistaan sida halkan ay kaga muuqata garoonkan waa garoon weyn 61 kun oo qof ayuu qaadaa marka maanta waxaan tusi doonaa qaybo badan oo kamid ah garoonka Emirates Stadium wali waxaan ku suganahay garoonka Emirates Stadium ee kooxda Arsenal imika waxaan tagi doonaa qolka dressing roomka halkan waa qolka dharbedelashada labarka koowaad waa golhayaha reer Germany Leno oo iminka inta badan kaalinta labaad ku jira waxa kale oo halkan aynu ku arki doonaa dhammaan ciyaartoyda kooxda Arsenal ka tirsan waa qolka dressing roomka Leno oo labarka koowaad ah Mohamed El-Neni inaka reer Masar Nketiah oo labarka soddaraad xirta waxaan kaloo arkaynaa Pierre-Emerick Aubameyang oo kabtanimada laga qaaday Pepe oo ah ninka lacagta ugu badan laga soo bixiyay Arsenal Gabriel Martinelli oo kamid ah ciyaartoyda iminka kooxda ay ku dhaarato Saka oo lagu tilmaamo wiilka Demanka ah Smith Rowe oo isna qadka dhexe maamula Alexander Lacazette oo weerarka ah Martin Odegaard ciyaaryahanka kubadda qaabeeyaha reer Norway Granit Xhaka oo asiga laftigiisa kabtanka laga xayuubiyay Thomas Partey qadka dhexe ee reer Ghana Sambi Lokonga inaka reer Belgium Cedric Soares oo garabka midig ka ciyaara una dhashay dalka Portugiiska Tomiyasaha reer Japan Rob Holding oo difaaca ah Ben White oo isna difaaca ah Gabriel inaka reer Brazil oo difaaca ah Tavares oo isna difaaca ah Tini oo garabka bidix ka ciyaara difaaca Ramsdale oo ah goolhayaha waa qolka dressing roomka kooxda Arsenal halkan ayay kooxdu dharka iskaga bedeshaa isla markaasna ay ku shirtaa marka maanta waxaa joogtaa
kooxda Arsenal qolka dressing roomka ma laga sheekeynayo mid kamid ah kooxaha adduunka ugu caansan ugu taageerayaasha badan mid kamid ah garoomada adduunka ugu qaalisan mid kamid ah qolka dressing roomka adduunka ugu qaalisan waxa ciyaartoyda loogu jecel yahay kana kamid ah saaka marka booskiisan fariisanaya كان واقعنا ونك غير برازيل مارتن إلي فمثل ما قولك الدريس رومك وعصر سن الدونك هي كوحدة على هذا مركال كان عيارتي في السنة يعني يتوب qolka dressing roomka waxaa ku xiran dhalo weyn oo telefishin oo loogu talagalay ciyaartoyda in tababaro ugu soo bandhigo shaxda lagu ciyaarayo iyo shaxda kooxda ka soo horjeeda markaasi la ciyaaraysa kooxda oo halkan lagu soo bandhigo hadda waxaan tigi doonaa qolka dressing roomka ee kooxda martida ah marka kooxda martida halkan ayay timaadaa halkan waxa idin kaga muuqda waa qolkii dressing roomka ee kooxda martida ah ama away teamka ee garoonka Emirates Stadium ciyaartoydu marka halkaan ay fariistaan dharkooda halkaas la surayaa imika xuma yaalaan laakiin rag badan halkaan soo booqday ciyaartoy waaweyn oo caalami ah oo garoonkan yimid ayaa halkaan soo fariistay Lionel Messi kala kamid ah ragii qatarta halkaan soo fariistay xilligu Barcelona ciyaarayay halkaan way yimaadeen Arsenal ba ciyaartaas ku badisay 2-1 Arshefel ba gool kamid dhaliyay waliba goolkii labaad marka dressing roomka waa halkaan marka haddaan toos idin tuso guud ahaan qolka dressing roomku waa kaa qaybtan waa qayb biyo kulul ay ku jiraan masaajana leh oo ciyaartoyda loogu talagalay ka hor ciyaarta iyo kadib qolkan waa qol ka mid ah qolalka masaajada ama caafimaadka oo loogu talagalay ciyaartoyda in lagu diyaariyo ka hor intaysan ciyaartu bilaaban hal ku dhigyo loogu talagalay in ciyaartoyda lagu dhiirigeliyo This is our time. Hadda waa waqtigeeni baa la yiri. Waxa kale oo ku sii qoran play for the badge oo micnaheedu yahay astaanta kooxda ayaad ku ciyaaraysaa ama aad u ciyaaraysaa. Micnaheedu waxay tahay kooxda ayaad u dagaalamaysaa haybadeeda iyo sharafteeda. Fight until the end. Macnahan waxa loola jeedaa ilaa inta seeriga la yeerinayo ama dhamaadka ciyaarta wax walba oo aad sameyn karto kooxda u samee ciyaarta u samee guul darro iyo guul labadaba waa tunnelkii ama meesha ciyaartoyda garoonka uga baxdo waa idin geyn doona aan isla soconno waliba waxay noo dhiman taariikhdii kooxda Arsenal iyo koobka ay qaaday aan isla soconno We are the Arsenal. halkan waa tunnelkii ama meesha ciyaartoyda ka baxdo marka garoonka la galayo halka marka laga soo baxana qaylada iyo buuqa garoonka dadka ku sugan ayaa ka baxa marka ciyaartu ay jirto maanta ciyaar ma jirto garoonka shaqa ka socota sidaad u jeedaan oo garoonka waa la diyaarinayaa waxaanu arki doonaa meeshan waa meesha ay fariistaan kooxda Arsenal Arteta iyo ku-xigeenadiisa iyo ciyaartoyda kaydka waa qaybtii kaydka loogu talagalay marka Mikel Arteta halkan ayuu fariistaa halkan ciyaarta ka maamula ku-xigeenadiisa halkan ay joogaan inta badan nin fariista ma ahan laakiin waa nin istaaga laakiin halkan ayaa loogu talagalay rag badan baa meeshan soo fariistay Arsene Wenger Unai Emery marka garoonka maanta waad u jeedaan shaqa ka socota garoonkana wuxuu ka mid yahay waa garoomada adduunka ugu casirsan markii hore wuxuu ahaa garoonka labaad ugu qaalisan dalka Ingiriiska Wembley baa ka qaalisan laakiin hadda kan Tottenham ayaa ka qaalisan marka kaalinta wuxuu galay saddexaad buu galay aniga marka maanta meeshan waxaan ka ahay Mikel Arteta kursigiisa aan fadhiyaa Arteta meesha ciyaarta ka maamula weeyaan marka maanta anaa bedelaya ciyaarta maamulaya aniga laga baqi maayo inaan every waxaas aan qaato waa inaan badiyaa ciyaarta qaybtan waa qaybta kooxda martida ah ama away teamka waxa la yiraahdo
shaqa ka socota waa la daday oo kuraastii shaqa ka socota laakiin halkaas ayay fariistaan rag badan ba halkan soo fariistay Alex Ferguson, Jose Mourinho, Antonio Conte, Pep Guardiola. wali waxaan ku suganahay garoonka kooxda Arsenal maanta waxaan tagi doonaa mar dhow idin geyn doonaa qaybta madxafka oo ay yaalaan koobkii kooxdan Arsenal ku guuleysatay iyo taariikhdii aan isla soconno kastoo kooxda Arsenal muddooyinkan aan qaadin koobkan Premier League halkan inay kaga muuqda haddana koobkan lagama yaabo inaad ka helishid garoon kale adduunka waa koob dahab ah waa koobkii Premier League oo Arsenal ay ku qaaday 49 kulan oo aan laga badin 38 kulan oo horyaalku ka kooban yahay marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay koobkan ma ku arki kartid garoomo kale ha ahaado Anfield Stadium oo Liverpool ay ku ciyaarto garoonka kale ee kooxda Manchester United Old Trafford ama Man City marka waxaan eegi doonaa koobkan dahabka maanta marka koobkan waa koobkii loogu talagalay Arsenal in la guddoonsiiyo waa koobkii dahabka ahaa ee ay ku guuleysatay horyaalka iyadoo dhinaceeda dhulka la dhigin meel kale ma yaalo halkan marka waad ugu jeedaa waxa ku qoran waxay tahay in bishii August 22keedii 2004 la guddoonsiiyay koobkan Arsenal waa koob gaar ah waa koob dahab ah oo si gaar ah loogu talagalay kooxda Arsenal waxa jirtay hadda ka hor 49 kulan in aan laga badin kooxda la yiraahdo Preston North End xil ciyaareedkii 1888 marka taariikhdii kooxda Arsenal ay dhigtay waxay la mid tahay taariikhda ay dhigtay kooxda la yiraahdo Preston North End xil ciyaareedkii 1888 marka ma jirto koox kale oo sidan samaysay kulamadii ay badisay Arsenal waa kuwana kuwii kamid ahaa 6-1 oo ay uga badisay Southampton, Sunderland 4 ay uga badisay waxa kaloo kamid ah inay ka badisay Man City 2-1 Man United ever bay la gashay Liverpool oo kale waxay uga badisay 2-1 Chelsea 2-1 bay uga badisay Tottenham 2-1 marka sidaas ayay u socdaan 49kii kulan oo aan laga badin Arsenal barbardhac iyo inay badiso ayay noqdeen 49kii kulan ayaa la safay taariikhdii dhacday maalintii intii gool oo kooxdu ay dhalisay iyo wixii natiijadu ay noqotay ayaa halkan ku safar marka si gaar ah ayaa halkan loogu xuseeyaa taariikhdaas aanay jirin cid kale oo dhigtay xaggan Premier League markaynu ka hadlayno waa koobkii FA Cup-ka halkan kii ugu dambeeyay kooxda ay qaaday ay halkan idin kaga muuqda waxa kaloo meeshan yaala koob kale oo kamid ah koobka Premier League ee kooxda Arsenal ay ku guuleysatay dabcan halkan ayaa la dhigay qaanad gaar ah looga sameeyay taariikh gaar ah weeyaan halkan waxa ka muuqda Patrick Vieira oo hadda kabtankii kooxda Arsenal iyo Arsene Wenger taariikh gaar ah ahayd imika waxaan ku jirnaa madxafkii taariikhdii Premier League iyo koobka ay soo qaaday Arsenal koobka halkan kaga muuqda waa koobka la yiraahdo Carabao Cup-ka oo kooxda Arsenal ay ku guuleysatay kii ugu dambeeyay ku guuleystay weeyaan imika waa la bedelay magaciina waa laga bedelay koobka qaabkiisina waa la bedelay laakiin kan waa kii ugu dambeeyay kooxda Arsenal ku guuleysatay halkan aad ugu jeedaan Liverpool bay ka qaaday 1987 bishii Abriil 15keedii halkan aad ugu jeedaan halkan waxaa kaga muuqda mid kamid ah koobka Premier League ee Arsenal ku guuleysatay madxafkan Arsenal wad garanaysaan 13 horyaal ay qaaday kooxda Arsenal mid kale oo kamid ah koobka FA Cup-ka oo kooxda ay ku guuleysatay ay halkan kaga muuqda waa FA Cup-kii ay kooxda ku guuleysatay sanadkii 1971 kani waa mid kamid ah koobka Premier League ee kooxda Arsenal ay ku guuleysatay halkan waa qolka saxaafadda loogu talagalay wariyaasha ay halkan fariista
ilaa iyo 150 wariye ayaa loogu talagalay markay su'aalaha weydiinayaan tababaraha kooxda iyo tababaraha kooxda kale. waa meesha halkan uu shirka jiraad ku qabto Mikel Arteta iyo tababarayaasha kale ee martida ah markay halkan yimaadaan. waa meesha saxiixa lagu soo bandhigo ciyaartooyga la iibsaday, ciyaartooyga heshiiska cusub saxiixaya. meeshan waa meesha Mikel Arteta uu fariisto oo saxaafadda uu kala hadlo. iminka miiskaas ayaan ku suganahay sidaad u jeedaan. marka maanta meesha aniga waxaan ka ahay Mikel Arteta. aniga marka waxa iga go'an ilaa 5 ciyaartooy inaan xil ciyaareedkan kaano horyaalka inaan qaada iga go'an. qolkan waa qolka ay ku bixiyaan shirka jaraa'id ama wareysida ku bixiyaan ciyaartooyda iyo tababarayaasha. marka maanta aniga ayaa waxaan noqonayaa tababarihii Mikel Arteta. garoonka Emirates baan joogaa. sidaan ay u hadlaan tababarayaashu marka hore waxaan isku dayay inaan iska dhigo tababaraha. su'aal baa la weydiiyay marka waxa la ciyaarta ka war natiijadeedii. runtii ciyaartu way fiicnayd. Liverpool waa koox aad iyo aad u adag. had iyo gooraale markay timaado garoonka Emirates runtii ciyaar adag bay soo bandhigtaa. laakiin anagu waan fiicnayn, wiilashu way dadaaleen. 2 gool ayaa qaybtii horena la ka dhaliyay. 2 ayaa lagu hormaray. runtiina waxaa moodaa in ciyaarta qaybteeda dambe wiilashu ay dadaaleen. dressing roomka markaan imidna waxaan u sheegay inay maanta ay tahay maalinta ugu muhiimsanayd ayna joogaan Emirates Stadium. 61,000 oo qofna waad garan kartaa culayska ay leedahay. marka inaan ciyaartii 3-2 ku badanay waa arrin aad iyo aad u fiican. waa qariiradii adduunka oo macnaheedu ay tahay Arsenal meelaha ay ku leedahay xarumaha waaweyn Afrika oo kale u jeedaan ilaa dhowr goobood bay ku leedahay xarumo waaweyn. ilaa iyo xaggaas hadaan aadno Far East hadaynu aadno dhinacan Australia hadaynu soo aadno xagga Europe hadaynu u kacno xaggaas iyo waqooyiga America xaggan iyo Latin America. kabta halkan ay kaga muuqata waa kabtii Arsenal ay ku qaaday mid kamid ah koobka FA Cup oo ay ka qaaday Liverpool oo 2-1 ay kaga badisay. waxaana dhaliyay ciyaartooyga la yiraahdo Charlie oo Arsenal u ciyaari jiray. marka kabtii oo dahab ah ayaa meesha la dhigay. taariikh ahaan baa meesha loo dhigay. halkan sidee kaga muuqata ciyaartooyga Charlie baa dhaliyay. waa FA Cup-kii finalkii 1971. halkan Arsenal waa markii koobka ku qaaday horyaalka Premier League ay ku qaaday garoonka Old Trafford. waliba 2 koob ay ku guuleysatay xilligaas kooxdu FA Cup-ka iyo Premier League. halkaas waxa kaga muuqda magaca garoonka Old Trafford. waa mid kamid ah guulaha kooxda ay ku faanto ay kamid tahay in ay ku qaaday horyaalka garoomo kale. labadan taalo waa raggii kooxda Arsenal soo dhisay 1889 nimankii aas-aasay weeyaan. ciyaartii ugu horeysay waxa ciyaartay December 1886 waxay la ciyaartay koox la oran jiray Eastern Wanderers 6-1 ayay ku badisay. marka halkan baa looga dhisay taaladaasi Founding Fathers baa loogu magac daray aabayaashii aas-aasay kooxda macnaheedu. halkan waa dukaanka dharka lagu iibisho ee kooxda Arsenal. qofka taageerayaasha halkan yimaadaan dharka ay ka gataan kooxda ciyaartooyga lambarkii aan rabtay lagu buufinayo. marka halkan waa meeshaas. tani waa taaladii ciyaartooygii Henry. goolkan wuxuu ka dhaliyay Tottenham. taalo gaara looga sameeyay. ninkan waa Dennis Bergkamp waad garanaysaan ciyaartooyga reer Holland. goolkan wuxuu ka dhaliyay Newcastle United. sida uu u kacay kubadda u kontrolay ayaa taaladii looga sameeyay. waa naqshada garoonka Emirates Stadium markii la diyaarinayay ayaa halkan la dhigay si gaar ah looga sameeyay. waa naqshadii garoonka.